magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo waxaa ka socda horumar xawli ku socda waxaana marba marka ka dambaysa isi soo taraya dhismayaal kala duwan kuwaas oo qayb laxaad ka qaadanaya kobaca iyo koritaanka magaalanimo qaar ka mid ah shacabka magaalada Wardheer gaar ahaan maalgashadayaasha oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida ee SRTV la hadlay ayaa fikirkooda ka dhiibtay horumarka iyo isbeddelka ay ku tallaabsatay magaaladaasi Wardheer ee xarunta gobolka Doolo. aniga magacayga waxaa leeyahay Cali Macalin Cabdi Umal waxaan ahay maray hadda meesha shaqada ka wada hoteelka shaqadiisu way socotaa waxaana waa waarsan yihiin qayb chief iyo qayb cafeteria ay isku xiran yahay qaybtan soo hadda arkayna waa cafeteriadii qaybta halkaasha ka muuqatana waa qaybta chiefka qaybta cafeteriadu waxay ka kooban tahay saddex qol oo lagu talagalay fadhiyahan laba suuli oo midna saddex suuli wato midna shan suuli wato lagu talgalay inay isticmaalaan dadka customka qolka xagga goonidiisa oo go'aana waxaa lagu talagalay cafeteriadii mashiinkii shaaha in halka lagu rakbo oo looga shaqeeyo dadka loo adeego qaybta chief waxay ka kooban tahay 36 qol bay ka kooban tahay waa dabaq isa saaran markaas 36da qolba suuliga gudaha ku leeyihiin وما تلقين روح إنه سوري بنان كورة سدو dadku inay adeegood meesha ku fushadaan marka afar qol ka mid ah VIP ahaan baa lagu talagalay ee ka waaweyn qolalka waan iska dhameeyay alaabtiisa kala bar way taalaa shaqo abuur badan ka soo baxay saas leenahay oo xagga dhalinyarada ah hadda waxa ka shaqeysaa taqriiban ilaa waxa ka shaqeysaa oo shaqada ka socota haween ilaa 6 ilaa 4 meel ilaa 10 maanta ka shaqeysaa shaqada ka socota hadda maadaama engineer kale uu shaqada wado xagga shaqadiisu ka yahay laakiin shaqaalaha dambe anna waan keenay ilaa 8 baa ka shaqeyso oo hadda shaqadan muuqata ka shaqeynaysa waan iska gabagabo waa xafiiskii office-kii weeyaan laga maamulaa hotelka iyo qoldamo ka dambeeyo chief weeyaan sanada waa gabagabo ka kale chief kana sana waa iska gabagabo waxaan wax saasada ma harsana maadaama qada hotelka uu heer gabagabo ku dhow yahay dhanka korriinka magaalada iyo bilicda doorka la buu qaadan karaa waxaa la oran karaa bilicda door weyn buu ka qaadan doonaa sababtoo ah meesha ku fadhiyo waxaa ku heerareysan maamulkii oo dhan nooc kasta waa noqdo degmaha noqoto oo maamulka noqoto maxkamadaha noqdo istiraatiijiyadu meel caalami ku yaala halkan dhanka biixin waxa ka mari doona laamigi loogu talagalay qorsheysnaa ceelasha aadayay xagga maamulka dhexmarayba mari doona ka qudhiso markii la mariyo de lama oran karo bilicdu soo saadinaya waa saayid baan oran karaa hotelkan wuxuu ku yaalaa meel central oo magaalada bartankeeda dhul aad weyn uu leeyahay oo saacada waaragto dhulka xagga ka muuqda ilaa xagga dambe waa dhul aad weyn oo dadku say doonaan maarta uu ka faaxi karaan marka isbedel wax xog leh ku qaban doonaa islaana wadanka aadan siraad cabdi caysh ninka dabaqan dhisayaana ana iska leh ilaahay ka sokow waa fiicannahay waa horumaraan gobolka ku soo siyaadinay ilaahayna inuu nala garab galaan doonaynaa waana wax barwaaqo ah oo hadda gobolkeena ilaahay keenay waana wadaynaa saddex dabaq oo halkaan iyo laba dabaq oo halkaas iskugu jira waa dhismuhu halkaas saas ka kooban yahay waan aad baana u socdaa waad aragtaan hawlgalkiisa qaybtii bulkeetiga wata oo loo sameeyay qaybtii kale oo dhismuhu waa ka qaabkaas u socdaa wuxuu ka kooban yahay saddexdan dabaq 40 qol weey qaybtaasi waa hoolkii shirarka iyo cafeteriyadii iyo cabitaanadii iyo dukaamadii qaybtaasna intaas ka kooban tahay kana 40 qol buu ka kooban yahay sidaas weeye ilaahay intuu calfaa ka noqonaysa dad badan oo waxa la yiraahdo gobolka jooga inay ka shaqeeyaan oo horumar oo ganacsi u soo siyaadiyo shaqo u soo siyaadiyo inta aad baan u rajaynaynaa boqolkiiba boqol buu ka qaadanaya boqolkiiba boqol mustaqbalka waxa ay qorshaysan in waxa la yiraahdo horumar ganacsiga ugu ballaaran aan ka sameeyno haddii alla idmo hotel chief hotel cunto mid cabitaan hoolalkii shirarka mid dhexe mid sore intaba haddii alla idmo
waxaan baaqa u dirayaa inay horumarkaas ka qayb galaan gobolka horumar baa looga baahan yahay waxyaalaha horumarkaana aad waxaan dadweynaha u baraarujinaynaa inay gobolka maalgeliyaan oo waxa la yidhaha hantidooda geliyaan oo gobolku gobol noqdo